gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa ka hadlay xaaladda gobolka Hiiraan iyo hadalhaynta xoogan ee ka dhalatay ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne. Ciidankaas wuxuu u yimid waajibaad qaran, ujeedkooda koobaad waa inay la dagaalamaan al-shabaab kuwaas oo hareereeyay magaalada. waad ogtihiin iskuma furna Beledweyne iyo Buula Burte iyo Jalalaqsi iskuma furna, Beledweyne iyo Maxaas iskuma furna, Matabaan iyo Beledweyne iskuma furna, mana jirto meel noofiyow ayuu yiri gudoomiye Cali Jayte Cusmaan. Gudoomiye Jayte ayaa sheegay in ujeedada ay dowladda federaalka ah ciidamada u keeysay Beledweyne ay tahay inay shacabka u adeegaan. Sababta loo qeylinayo ma fahmi karo aniga, wax kasta in dhinac xun laga fiiriyo maahan. ciidamadan waa ciidankeennii, waa wiilasheenii, waa ciidan Soomaaliyeed. waxaa loo keenay in ay idiin adeegaan, talada lagu keenayna waxbaan ku lahaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Jayte ayaa siyaasiyiin dhawaan shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ee ka soo jeeday gobolka Hiiraan ku tilmaamay inay yihiin kuwa baaga muddo ah, isla markaasna wuxuu tilmaamay in warkooda uusan meel ka soo qaad lahayn. qolada saaxiibaday ah ee hadda baaga muddada ah ee maalin dhaweed hadashay wax weyn oo wax dhibaya ma lahan, sababtoo ah mar kasta oo isbedel siyaasadeed yimaado ama xaaladdu soo gaadho darbiye isku qaad waa jiri jiray weligeed. Jayte ayaa dhanka kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ku eedeeyay inuu siyaasadeynayo ciidanka soo gaaray Beledweyne, wuxuuna si aad ah uga soo horjeestay shirkii golaha wasiirada ee laga soo saaray in dib loo soo celiyo ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne. wuxuu shaaciyay qorshe uu ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble doonayo inuu doorashada ugu wareejiyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. waxaa la yaab leh oo wax laga noxo ah in ra'iisul wasaarihii dalka uu shiriyo wasiirada xukuumadda kuna dhawaaqo in la soo celiyo ciidamada magaalada Beledweyne la keenay, waliba iyadoo ay nagu hareereysan yihiin al-shabaab ayuu yiri Cali Jayte Cusmaan. doorashada dalka waa laba deegaan doorasho. haddii magaalada Beledweyne ay ka dhici weyso doorasho, waxaa mas'uuliyadeeda qaadanaya ra'iisul wasaaraha dalka, sababtoo ah isaga farmaajo ka dalbaday in lagu wareejiyo doorashada iyo amnigeeda. awoodda looma adeegsado dadka aad madaxda u tahay. hadalka gudoomiye Cali Jayte Cusmaan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli uu muran ka taagan yahay ciidamo ay Villa Soomaaliya geysay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, kuwaasoo la rumaysan yahay in loo adeegsanayo boobka doorashada 25 kursi ee taala magaalada Beledweyne. dhinaca kale General Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo shir u qabtay wariyaasha ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah sida wada hadallada uu kula jiro dowladda Soomaaliya, xaaladda Hirshabeelle iyo ciidamada la geeyay magaalada Beledweyne. Xuud ayaa ugu horreyn shaaca ka qaaday in si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho, isla markaana loo dhigay gogol Soomaaliyeed, wuxuuna intaasi ku daray inuu la kulmay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa in is aragnay, arrintaas waxba kama uu qabo Soomaalinimo ayuu u istaagay. ra'iisul wasaarahana insha Allah waan is arki doonaa, isagana waan leeyahay Soomaali fiiri u istaag dhammaan Soomaali ayuu yiri General Abuukar Warsame Xuud. sidoo kale wuxuu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay ujeedka socdaalkiisa magaalada Muqdisho iyo wada hadallada u bilowday isaga iyo Villa Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay inuu u socdo heshiis ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa tabashada ay qabaan reer Hiiraan. waxaan nimid xamar, waxaan u nimid dowladda, heshiis ayaa noo wada socda. heshiiskaas waa mid u faa'iideynaya ummadda reer Hiiraan. heshiiskaasi wuxuu noqon doonaa mid labada dhinacba laga istaago ayuu hadalkiisa sii raaciyay. General Abuukar Warsame Xuud ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in weli uusan ka tanaasulin mowqifkiisa, isla markaana uu taagan yahay raadinta xaq uu sheegay in uu ka maqan yahay Hiiraan. annaga kacdoonka shacabka Hiiraan ayaana la yiraahdaa kama tanaasulin arrintii aanu istaagnay. nin walba haddaba dhagahaaga ku hayso, annaga dad u yimid in la gato maahin, waana ka weynahay. lacag wax ay tarta ma lahan, karaamaa wax tarta ayuu hadalkiisa sii raaciyay General Abuukar Xaaji Warsame Xuud. dhinaca kale Xuud ayaa jawaab ka bixiyay hadalkii ka soo yaray madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo dhawaan si kulul uga hadlay xiisadda magaalada Beledweyne, wuxuuna ugu jawaabay generaalku: daraad waan maqlayay waxa uu ku hadlayay Dabageed, walaalkay aqoon darra u geysay, anne waa icaynaya oo walaalkiisaan ahay. Cali Guudlaawana soo dhawow ayuu leeyahay, waa ayaan darro weyn oo meesha taala ayuu yiri General Xuud.
ugu dambeyntii waxaa jenaraal Abuukar Xaaji Warsame Xuud wax laga weydiiyay ciidamada ay dowladda Soomaaliya geysay gudaha magaalada Beledweyne oo shaki weyn dhaliyay maadaama lagu soo aadiyay xilliga doorashada wuxuuna hoosta ka xariiqay haddii ciidamadaasi ay u shaqayn waayaan Soomaalinimo la soo celinayo sida uu hadalka u dhigay ciidankaasi Beledweyne la geeyay haddii uu shaqayn waayo si Soomaalinimo ah waan soo celinaynaa hadduu Soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn buu yiri si kastaba hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo weli xaalad kacsanaan ah laga dareemayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo lagu qabanayo doorashada kuraas ka mid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya ana xiisadu ay ka sii dartay markii ay dowladda Soomaaliya ciidamo fara badan u dirtay halkaasi